فبشري وبالآذ بركيسن ويان وبالقبوليات بأولى سعة أمة النبي محمد هبين قصوا بشهر رمضان كمذا وحو النبي قلنا شيء إن إلهي أوليه الضماء النار تكحري إن لله عتقاء من النار في كل ليلة وذلك في كل ليلة أبو النبي يقول هبين كستي وحا إلهي وهات الضماء النار تكحرينا وبشي نحريستا dad badan baad arkaysaa 12 ka bilood masaajida aan soo galin oo bisha ilaahay miskiidka soo galiyo ma dhacdo way dhacdo dad badan bisha Ramadaan bay kala wareegayaan kala wareeg noloshiisa oo dhan baa ilaahay kala wareejin waxa laga yaabaa awal inuu macaasi iyo qaflad ku jiray laakiin bisha Ramadaan qaabilkay soo qaabishay ee isaguna uu soo qaabilay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala u soo noqday adoonkiisii markaa ilaahay u furaya albaabada raxmadda ilaahay u furaya albaabada acmaasha loo furaya salaadii buu xafidaya soonkii buu xafidaya quraankii buu xafidaya akhlaaqdiisa oo dhan baa ilaahay bisha Ramadaan ku beddelaya waa bil aad u barakaysan barakadeeda waxa kugu filan sharaf waa bisha quraanka kariimka ilaahay soo dajiyay weeyaan shahru ramadaan alladhi unzila fihi alquran inna anzalnahu fi laylatin mubarakah إنا كنا منذرين وبالهبين كمذا بشهر رمضان أي إلهي القرآن الكريم لقصوا النقليي من لوح المحفوظ بكسوا قادة الملائكة إلى بيت العز وسماء الدنيا كويا لا من بيت العز القرآن وكسوا دقي إلى سماء الدنيا صدحي الله بعتصنا القرآن وكسوا دقي سورة دموع الرئيسنا وحيه اقرأ آية دوغد ما يسنا علماء وحي كشيغان واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون آية دوغه الرئيسنا وحا لغا بلابي وللتعريف إلهي من نبي جيسي اسكو براي أوله اقرأ باسم ربك الذي خلق آية دوغد ما يسنا وحي نغطي واتقوا يوما فيه ترجعون إلى الله كبغ بالليه هاي مالين إلهي كسعب صدا ومعاصدي منكر كي حمانته كم جوك صدا maalin baa imani doonta ilaahay aad xaqiisa u noqoni doontaan oo naf walba waxay adduunyada ku soo qabatay ilaahay hortiisa laga abaal marin doonee iyadoo aanan la dulmin oo lagu xadgudbin bisha Ramadaan waa xal doonaya dadka muslimiintu inay ka bartaan iimaan iyo taqwad iyo tarbiyad caafimaadka ku ziyaada iimaanka ku ziyaada cibaadada ku ziyaada quraanka akhriskiisa ku ziyaada waxaad arkaysaa bisha Ramadaan sida quraanka loo akhrinay bilaha kale looma akhrin karo waa bishii quraanka sida daraadeed war walaal muslimow maalinteedana hurdaha ku gaabsan habeenkeygana soo jeed inuu kugu dhaafin dad badan baad arkaysaa muslimiina maalinkana way hurdayaan habeenkeygana way soo jeedayaan وفرصة إلهي نسيي حتى وحكت على كتب التاريخ علماء هوري الإسلام قبل شهر رمضان قاركود علمي ومدة أي بريان انتي يرجو جيان بأورنجرين بشن وبش القرآن كان آخرين ناي بعد رمضان هنوهاتو رقي كوبي تومن كبلود ومدة علمي بريي القرآن كتفسير كيس بريي حديث النبي كتفسير كيس شرح كيس بريي فقه ومدة بريي أيا أورنجرين بشن وبش عبادة ويا وبش إلهي لو دوانيي وبش القرآن الله آخر السنة نشاخ مالين ألقى كان لي وحيدي إمام شافعي رحمه الله وحلق الشيء يقول يدي إنه لبي صدح اللحدا جير أي قرآن بشار رمضان ختم جريبا لي لبي اللحدا جير هبين كنا مربو ختمه مالين كنا مربو قرآن ختمه هذا محان أخريا هذا سمحان أخر دعا وقت جينا القوكو بحيمانت وفرصة كل دم بين هذه دون الله ما قرن كرو ويكسو مرتين لكن هردين يكون دافن مالنتين هبين كيكون سوجدين يكون دافن يشكي ما لا يعني مالن كان مساجد عمر وقرآن كآخري وذكرك بدي وعلمك علماء كبروا وحلقات كفريسو وأمتك براروجي والزيارة ودتك حق إلهي أبويا هبين كيغنا قيام كيغي تراويح دي قرآن كيغا أوكا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا بإلهي وإن الله لمع المحسنين والذين جاهدوا فينا كو حقيقة أسود دالة بإلهي إليهي طريقيدي للنص ومريبا أفرنا بإلهي
islaamnimada ilaahay baa kugu deeqay adiga laakiin muslim quman inaad noqoto adiga dadaalkaaga ku xidhan tahay islaamnimadu waa hadiyad ilaahay ku siiyey ilaahay baa diinta islaamka ka dhaliyay laba waalidoo muslimiina dhexdoodana ka soo saaray laakiin muslim quman oo toosan inaad noqotaa dadaalkaaga ku xidhan tahay lidaalika mujaahada ilaahay naga dalbay mujaahado jaahaduu fiina kuwa xaggayga u soo jihaada baa ilaahay kitaabu lfawaa'id ibn qayim raximahullah wuxuu ku sheegay ninba ninka uu ka jihaad badan yahay ayuu ka hidaaye badan yahay fardu caynna waxaa jihaadka ugu fardu caynsan waxa weeyaan waa naftoo lala jihaado shaydaankoo lala jihaado adduunyadoo lala jihaado hawada naftaadoo lala jihaado afartaasi in lala jihaada waa fardu cayn calaa kulli muslim afartaa jihaad ninka soo dhaafay ayaa ilaahay macrifadiisa dhadhaminaya ayaa cibaadadu u dhadhamaysaa ayuu qur-aanku u dhadhamaya ayaa masaajidda fadhigooguna u fududaan doontaa ilaahay asmaadiisa waxaa ka mid alhaadi hidaayadda ilaahay baa haya laakiin asbaabu lhidaaya waa maxay masaajida camir inamaa yacmuru masaajid allah man aamana billah واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين أسباب الهداية وحاكمدا إن المساجد عمرتا وصلاة أوكتا والزكاة بحسا وذلاهي ما ينعدك الآن تكبغن صفاتك قفك لقيه لبا إلهي فعسى أن يكونوا من المهتدين وحو مضيه قفك إنه كم من غضباء إلهي لكوه هنوصنا الهنونية أسباب الهداية ومساجد كعمر حقا ضبح تعليق نوحوها قبل الخطبة لكن علماء أنا قالوا لي والجمعة والرمضان حقا لتقي وحي خير إلهي نسود أحمرين ومدها الله شيقو ومدنا دقيقة هوفرتو إلهي قولك سهم غش من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملئه أدونك كلجي حسوس طبع إلى هيري أنا أقول كلجي بان حسوسنا يا أدونك جمع يقول حسوسي يقول وينينا جمع ويقول حسوسي جمع كخير بدل ما يقول حسوس طبع إلى هيري الآن هد إلى هي بين هذا الحي إنك فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون بإلهي حسوستا أنا وأنا حسوسنا يا إنسان ضعيفة أو مسكين أو فقيرة مركو إلهي حسوسته إلهي جل وعلا كوكو حسوسنا يا مع صفاته جل وعلا كما يليق بجلاله بكوكو حسوسنا يا إلهي هن أمنا إلهي هن حسوسنا هكو شكرنا هسكو براروجنا هم برينا باهيدين إسقى هنو شجعنا إسقى إن نقول ما ركتاني وتوبوا إلى الله جميعا لما أنت نسوا النقطة بإلهي ليه من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه أدعوا أنت إن كسر نقن قلبين كيسوا نقطة بإلهي ليه إسقى نوارو نقنا يا بإلهي ونسوا نقنا يا تدري بري ما وقت عيني عيد حاجة صبح يا إنك لا نتوب إلى الله عز وجل بشي بركة سنيد ما كجرنا وبشي توبدا وبشي نار كحرينتا وبشي دم بدافكا وبشي رزق مؤمنك للزيادين وبشي عفسك ذاتك مسلمين توحال قرب بشا إن يكون يحدود إسعافيان إلى هنا عفس أي ويديستان إلى هنا أي النقدان إلى هنا أي حريص كالضلبان هذا ولالك عاد عفدو أذن إلهي باكو عفن الرب بن إسرائيل وإلهي ودقال السياجري وغنيها لكن وحوها مصرف وإسراف النكاس نفتيسا وما في عينين ومعاصي بدنا والله نعميي أولاد با إلهي سيي أرزاقات با إلهي سيي عافمات با إلهي سيي مع ذلك هدنا وحوها من عاصي أبوها لكن صفة عجيب لها صفة دي سمعي ذاتك أيو لعكتها ما هجري marka kii soo celiyo xilliga lagu ballamay oo ka qaadanayay ka ballanta ii biri yiraadina ballantu u kordhinayay ka keeni kari waayeen oo iska cafinayay maalintuu dhimanayay buu nimadiisa u yeedhu yiri aniga ilaahay aabba waa ii nicmeeyay laakiin nicmada ilaahay waan ku kufriyay
waxaan ilaahay la hortegayo iga horeeyo khayr aan uma garanayo ya ma garanayo wax khayr oo iga horeeye aaba dadka sidaan ula tacaamula buu yidhi daymiya kadaynka soo celiya xilliga lagu ballamena ka qaata kadaynka soo celin kari waayana ka cafiya ka ballanta noo biiri yidhaahdana mawcidka u biiriya maalinkuu dhintay ayaa ninkii ilaahay la hor joojiyey ilaahay baa yidhi soo saara ii keena addoonkaas markaasaa ilaahay yidhi addoonkaan u nicmeeye ma tihi haa waanahay addoonkii baan ahay maxaad la timid maanto agtayda aad soo dhigatay waxba mujrim baan ahay daalim baan ahay faasiq baan ahay musrif baan ahay mutrif baan ahay waan israaf markaasaa ilaahay jalla wacalaa ku yidhi miyaanad ahayn addoonkaygii addoommahayga dayminayey ee sidaa ula tacaamulayay maad ahayn waan ahaa addoonkaygii miyaanad ahayn maalintuu soo dhimanayay wiilashiisa kala dardaarmee yidhi kadaynka soo celiyana ka qaata ka mawcidka noo biiri yidhahdena mawcidka u biiriya ka soo celin kari waayena iska cafiya addoonkii innimadiisa sidaa kula soo dardaarmay in addoommahayga ula tacaamulaan adigu ma tihid haa waanahay anna waan ku cafiya jannada gal baa ilaahay yidhi walcaafiina can innaas wallaahu yuxibu lmuxsiniin maalin kastoo isniina buu nebigu yidhi maalin kastoo khamiisa ayaa acmaasha addoommadu ay sameeyeen ee wanaagsan ilaahay la horgeeyaa addoon kasti oo ilaahay cibaadadiisa aan cid kale la wadaajin dembiga ka dhaca ilaahay waa u soo dhaafaa ilaa laba addoon buu rasuulku yidhi laba addoon dembigooga lama dhaafo camalkoogana ilaahay hortiisa laguma furo ilaahay wuxuu idhahdaa labadaa camalkooga u celiya dembigoogana ma dhaafayno ilaa ay dhexdooda ka heshiinayaan ay dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane kaanat baynahuma shaxnaa buu nebigu yidhi laba addoonoo dhexdooda cadaawtinimo iyo buqdi iyo isnacayb dhexdooda uu ka jiray camalkooga ilaahay jalla wacalaa loo geyn maayo dembigoogana dhaafi maayo celiya buu ilaahay dhaha kuwa camalkooga ha ii keenine ilaa ay isa saamaxayaan iyaka dhexdooda walaalayaal bishan waa bishii cafiska waa inaan inagu iscafinaa waa inaan isku naxariisannaa waa inaan noqonnaa sida ilaahay sidii nebigeennu yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda mu'minku mu'minka kale wuxuu ku yahay dhis mu'miniintu sida dhagaxda dhisku ay dhagaxba dhagax ugu haysto ayay muslimiintu isku haystaan way isxoojinayaan way isku kaalmaynayaan way isku naxariisanayaan way isku damqanayaan way is asturayaan addoon walaalkii adduunka dusheeda ceebuu ku arkay uma qariyo ilaa hadduu asturo buu nebigu yidhi isagana maalinka qiyaamaha ceebihiisa ilaahay asturaya walaalkaa ceebtiisaan maanta qarisay maalinka qiyaamahee banka qiyaamaha khalqiga lagu fadeexadayn doono ayaa ilaahay ceebtaada ku asturi doonaa addoon mu'mina ayaa ilaahay u yeedhi doonaa u soo dhowayn doonaa ilaahay raxmaddiisa iyo sadrigiisa ilaahay huwin doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkii hebel ahaaye dembiga badnaa ma tihid markaasuu leeyahay haa ma garan dembigii maalintii halka aad ku samaysay ma garan markaasuu leeyahay haa markaasuu rabbulciza odhanayaa adduunka dusheediina waan ku asturo cidna kuumaa sheegin maantana dembigaaga waan dhaafee kitaabkaaga gacanta midig ka qaado sucaal la odhan doonaa has xidhiidhinno waa bishii dadka muslimiinta la doonayay inay sidii hore si ka duwan ay iskaga warhayaan isku damqadaan is afursiiyaan afurka iskugu yeedhaan ninka walaalkii timir ku afursiiya buu nebigu yidhi ajarkii siyaamkuu qaadanaya haddaad timir haynin ka basho biyaa waad heli kartaa biyo ku afursiya walaalka kalimatu tayibatu sadaqa kelmadda wanaagsan waa sadaqad salaanta faafi afshu salaam wa atcimu طacaam wasilu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam waxa uu nebigu yidhi war salaanta dhexdiinna faafiya dadkana cuntaysiiya riximkana xidhiidhiya habeenkii dadku markay hurdaana kaca oo tukada jannada rabbigiin buu nebigu yidhi nabadgelyaad ku galaysaane bishaa walaal kulligan inaan iscafina soo diyaar uma nihin insha allah ya ma iscafinay ma isa saamaxnaa dadka walaalaheen haddaad walaalkaaga muslimkaa waxtar u yeelanayn sharkaaga ummadda ka hayso takufu sharaka can innaasi sadaqatun minka buu nebigu yidhi sharka ilaahay kugu abuuray oo ummadda aad meel kala fadhiisataa sadaqad bay kuu tahay buu rasuulku yidhi waxtar haddaad ummadda u yeelan weydo waa inaad sharkaaga ummadda ka haysataa
bishaas waa bishii ducada la aqbalayay han isku ducayno ummadda hanu ducayno muslimiinta caalamka islaamiga khaasatan hanu ducayno gaaladana ilaahay intii hidaayada ugu talagalay ilaahay inuu albaabada hidaayada u furo hanu ku ducayno wixii shar wadana sharkooga ilaahay gudahooga inuu ku celiyo han ku habarnayo kana ilaahu wixii khayr wadana baan leenahay khayrkiisaas ugu kaalmee wixii shar nagula soo maqanna ee muslimiinta dhexdooda dhib iyo xumaan dhexdooda ka wadana ilaahu sharka uu nagula soo maqan yahay gudihiisa ku celiyo insha Allah soo ku ducayn mayna sidaas dadaalka diinta zamankan waa zaman waxaan ku jirnaa adag baan ku jirnaa adag khayrka badan mise sharka badan baligi jawaaba magaaladiina dadka khayrka badan la inay keenay badan Allah inii ziyadiyo runtii jamaacadadu markay magaaladeena Booraba soo maraan inuu yimaadaan waxaan ka warrama magaaladii waxay dhaadaan magaalada sida quraanka loogu dhiganayay masaajidana loo camirayay meel lamida manu arag bay dhaadaan khayrkaas la inagu sheegaye Allah inii ziyadiyo aamin dhahada laakiin khayrka ma la fadhiisanaa mise ummadan gaarsiinaa ya tuulooyin waxa jira markay jamaacadadu ay mareen imaamka kaliya salaada subax uu ka tukado imaamka kaliya bas dadkii waa wada muslimiin ma soo kacay salaadii subax khayrkaas aan haysanno waa inaan ummadda kalena aan ku deeqnaa waa inaan ummadda u gudbinaa waa inaan ummadda u naxariisanaa soo diyaar ma nihin sidaas Allah inagu anfaco dambigeena Allah dhaaf dad walaalaheena oo muslimiina oo dhalinyar iyo odayaal intaba leh ayaa nool yaa la maaragtay majmac loo nooga duceeyay waa maalin jumce jumcuhuna waa saacada ijaaba ku jirta waa maalin jumce oo bil Ramadaan dhammaantood insha Allah taala ilaahay muraadkooga macsiye lahayn gacanta midinu ka siiyo maxaa tiraadeen Allah siiyo dhaxda wixii naga bukan Allah shaafiyo wixii buka Allah shaafiyo qof kasto muslim oo kurbeysana kurbada halka uu ka kurbeysan yahay Allah ka qaado mid kastana muraadkiisa oo macsiye lahayn gacanta midiga Allah ka siiyo dhalinyarada wiilal iyo gabdhaha Allah inoo hadeeyo inagana dambigeena Allah inoo dhaafo diintana Allah inoo macaaneeyo salaada Allah inoo macaaneeyo quraanka Allah inoo macaaneeyo diinta barashadeedana Allah inoo fudaydiyo wa diinta u dadaala ee ku dhaqmo ee ku amal falay diinta danay Allah inaga yeelo amniga iimaankana Allah inoo ziyaadiyo maalmahana roob la'aan baa jirtay roobka Allah inoo furo ilaahu naxariistaada nagula tacaamule afcaasheeda ilaahu nagula tacaamulin sida annahay hadduu ilaahay nagula tacaamulayo adduunyada inaan joogno xaq uma yeelaneen laakiin ilaahay wuxuu nagula tacaamulaa sida isagu u yahay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu roobkana ilaahay noo furo oo rays samada roob khayr badan Allah inaga siiyo dhulkana rays barakaysan Allah inooga soo saaro amni iimaankana Allah inoo ziyaadiyo dalkeena nabadgelyadiisa Allah inoo sii adkeeyo dadka muslimiinta midnimadooda muwaafaqada Allah u ziyaadiyo meel kasta muslimiintu joogaana kurbada saaran Allah ka qaado xiriiriga Allah ka faydo wixii kurba haysatona Allah ka qaado diinta taacada Allah inoo macaaneeyo soonkeenana maqbuul Allah ka yeelo khaatimada Allah inoo wanaajiyo cadaab alqabrina Allah inaga nabadgeliyo firdaws ala Allah inageeyo sallallahu ala sayyidina